بسم الله الرحمن الرحيم كل wanaagsan qiyaarta nala socota meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhawaada taxanaha Barrow Show caawa oo ay taariikhdu tahay 22ka Agast sanadka 2025 qodobada aan idin haya caawa waxa kamid ah dawladda Iran oo maanta soo bandhigtay gantaalo mucjiso ah iyo diyaarado drone oo loogu magac daray Power 5 arrintan ayaa waxay ka dhacday dawladtus lagu sameeyay qaybo kamid ah badda Amman iyo badweynta Hindiya oo ay ciidamada kala duwan ee badda ee dawladda Iran ay ku soo bandhigeen ilaa iyo dhowr gantaalo kala duwan oo gaaraya in ka badan 400 oo kilomitir iyo waliba diyaarado drone oo loogu talagalay inay isqarxiyaan arrintan ayaa waxay ka dambeysay kadib markii Iran ay sheegtay in ciidamadeeda ay carbisay una diyaar garowday dagaal ballaaran oo soconaya waqti dheer haddii la isku dayo in la soo weeraro xilli Israa'iil maalmihii ugu dambeysay ciidamadeeda ay ku jireen diyaar garow dagaal oo baaxad leh arrimahan sidee looga dareemayaa gobolka bariga dhexe dawladda Iran diyaar garowga ay sameynaysaa maxaa lagu macnayn karaa caawa iyo qubanaha Barrow Show ayaad ku daawan doontaan qodobkaasi ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu maanta waxa uu jeediyay goodintii ugu weyneed xilli uu wareysi siinayay telefishin ka soo baxa dalka Australia waxa uu yiri waan qabsan doonaa magaalada Qasa xitaa haddii buu yiri kooxaha wax iska caabinta Falastiiniyiintu ay hub ka dhigaan tan oo si weyn hadda loo faaqidayo dhinaca kale dhaqaatiirta ka howlgala marinkana waa loo digay waxana lagu yiri inta ay goor tahay waa inaad ka fiirsataan tallaabooyinka aad qaadaysaan tan oo dhaqaatiirta caafimaadka iyo ururada samafalku ay si weyn uga dayrinayaan barakacinta shacabka Gaza waa bilaabatay Benjamin Netanyahu waxa uu askar ka soo qoranaya wadamada waqooyiga America iyo sidoo kale Yurub si dhalinyarada Israa'iiliyiinta ee halkaasi jooga ay ciidanka uga mid noqdaan madaxweynaha dalka Masar General Sisi maanta waxa uu gaaray dalka boqortooyada Saudi Arabia isagoo kulan la qaatay Mohammed bin Salman ujeedada ka dambaysa waxay tahay kulankan sidii carabta ay aragti midaysan uga qaadan lahayd barakacinta lagu hayo shacabka magaalada Qasa xilli ciidamada Israa'iiliyiintu ay bilaabeen weerar ay ku qaadeen deegaano kala duwan oo marinka ku yaalo ay ka mid tahay xaafadda Saytuun taas oo la soo warinayo in dhibaatooyin bini'aadanimo aad u liidata ay ka taagan tahay dhimashada rasaasta dadka ka soo gaaraysa waxa ka daran inta gaajada u go'aysa kiisas la yaab leh ayaa ka taagan magaaladaasi iyadoo wali dadku ay raadinayaan sidii xal lagu heli lahaa kooxaha wax iska caabinta Falastiiniga waxa ay doonayaan sidii uga hortagi lahaayeen duulaanka qaawan ee dhulkooda Cabdicasiis Barrow ayaana hay saaxiibayaal xubnaha koowaad ee caawa iyo Barrow Show waa daawanaysaan soo dhawaada kuna soo biira YouTube-keena oo subscribe saara aad baad u mahadsantiin ma ogtahay in dhakhtar Shaafici aadan dirir loo aqoonsaday dhakhtarka ugu wanaagsan qaliimada dalkeena Soomaaliya ahna dhakhtarkii ugu horeeyay ee wax ku qala qalabka casriga ah ee laparoscopiga ama laserka maalin waliba wuxuu heega kugu yahay isbitaalka Shaafici ee magaalada Muqdisho ee hore u gaar ku horeeya dalka Iran maanta ciidamada badda ee Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran waxa ay soo bandhigeen dawladtus military oo lagu magac daray awoodda joogtada ah ee 1404 kaasi oo lagu qabtay badda Amman iyo waqooyiga badweynta Hindiya sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee Tasniim tababarkan iyo waliba carbiskan ciidan waxa lagu soo bandhigay gantaalo la yaab leh oo mucjiso ah oo qaarkood gaaraya 100 kilomitir isla markaana laga tuuro meelo fudud oo ay ka mid yihiin saldhigyada ciidamada iyo xeebaha gantaalaha qaarkood waxa loogu talagalay in ay burburiyaan maraakiibta dagaal ee soo galaya xeebaha dalka Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iran gantaalada ayaa loogu magac daray Naasir iyo Qadir gantaalka la yiraahdo Qadir waxa laga ridayaa xeebaha waxaana loogu talagalay maraakiibta weerarka ku soo ah wadankaasi inuu cardaadiqada ka dhigo gantaalka gale ee mucjisada ah ee Naasirna waxa uu noqonayaa kan hadda dawladda Iran ay soo bandhigtay xilli shalay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee dalkaasi uu ku dhawaaqay in diyaar garowgan uu noqonayo mid la yaab leh oo cadawga wadankaasi ka argagaxinaya haddii ay isku dayaan inay weerar soo qaadaan saahatee tallaabada kale oo xiisaha leh oo maanta ciidamada Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iran ay soo bandhigeen waxa ka mid ah diyaaradda loo yaqaan Power 5 oo ah
diyaarad wadani ah oo aan duuliyo lahayn oo lagu farsameeyo gudaha dowladda Iiraan. Diyaaradan ayaa qorshaheedu waxa uu gaarayaa yool ah in ay bartilmaameedsato fogaan gaaraysa bartilmaameed 400 oo kiiloomitir ah si ay u burburiso iyadoo qalabkeeda uu dhammaystiran yahay. Diyaaradan waa mid aan duuliyo lahayn waxaana ujeedadoodu ay tahay in lala beegsado maraakiibta iyo waliba saldhigyada kale waxaana ay ka duulaysaa goob walba oo bad iyo bari ah iyadoo aan yoolka loo diray ka amban oo aan ka weecan waana qaybtii ugu dambeysay ee tiknoolajiyada dagaalka ee ciidamada qaranka dowladda Iiraan ay soo bandhigeen. Tallaabada maanta ashqaraar kale ee ciidamada dowladdu waa Iiraan ay soo bandhigeen waxay ku soo aadaysaa iyadoo gobolka bariga dhexe xaaladiisa ay hadda taagan tahay meeshii ugu adkayd sababa la xiriira isbeddello waaweyn maadaama Israa'iil ay hadda doonayso inay weerar ku qaado xulufada dowladda Iiraan ee bariga dhexe isla markaana dowladdaasi ay jabiso sida dhowr goor hore hanjabaadyo ay jeediyeen Benjamin Netanyahu iyo Israa'iil Katz oo wasiirkiisa gaashaandhigu ay tilmaameen in ay bartilmaameedsan doonaan madaxda ugu sarreysa ee dowladda Iiraan. dhinaca Sacuudi Arabiya maanta haddii aan fiiriyo magaalada lagu magacaabo Al-Nu'aym waxaa booqday dhaxal sugaha wadanka madaxweynaha wadanka Masar General Abdi Fattah al-Sisi iyadoo halkaasina uu ku soo dhaweeyay dhaxal sugaha wadankaasi boqortooyada Sacuudiga ahna ra'iisul wasaaraha hogaamiye golaha wasiirada ee dowladdaasi Mohammed bin Salman. ujeedada kulankan iyo socdaalka waxaa lagu sheegay sidii xal looga gaari lahaa dhibaatooyinka ka aloosan bariga dhexe gaar ahaan xiisadda sii kordhaysa ee u dhaxaysa nidaamka Israa'iil ee xoogga ku jooga dhulka Falastiin iyo shacabka gobonnimo u dirirka ah ee doonaya in ay gudnimada ka saaraan dowladdaasi. sida uu ku warramay qasriga boqortooyada ee dowladda Sacuudiga ee Al-Yamaama lagu magacaabo maanta magaalada Nu'aym ee aan aadka uga fogeyn dowladda Masar waxaa ka soo degay General Sisi oo ay la socdaan xubno sarsare oo ka mid ah dowladda Al-Ittixaadiyya waa qasriga looga taliyo dowladda Masar isla markaana ay doonayaan inay kulamo la qaataan madaxda wadanka Sacuudiga. afayeenka madaxtooyada Masar ayaa sheegay in booqashadan ay tahay mid ka turjumaysa xiriirka qotada dheer ee taariikhiga ah ee ka dhaxeeya labadan dal ee qowmiyadda Carbeed ka soo wada jeeda laakiin ujeedadoodu hadda ay tahay sidii gobolka bariga dhexe xiisadda ka taagan loo soo gabagabayn lahaa. hadafkan ayaa waxa uu yahay si uu ku doonayo in uu ku tago dalka amaba uu ku tagay dalka Sacuudiga in uu ku soo gabagabeeyo xiisadda gobolka ka taagan gaar ahaan Falastiin iyo waliba si meesha looga saaro rajada Benjamin Netanyahu ee la xiriirta Israa'iisha weyn oo saameynaysa dowlada ay ka mid yihiin Sacuudiga iyo Masar laakiin lama oga dowladaha Carbeed in arrintani wax weyn ay ka gali karaan mar haddii Netanyahu qorshaha uu ku dhago aan laga fajin karin. ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa waxa uu wacad ku maray xitaa haddii ay hubka madaxa saartaan kooxaha wax iska caabinta Falastiiniyiinta ah in qabsashada magaalada Gaza aysan ka labalabayn doonin. sidaasi waxa uu ku sheegay waraysi maanta uu sheeyay telefishinka Sky News Australia oo dalkaasi Australia ka soo baxa oo xaaladan u kurgalayay. sida uu qoray telefishinku waxa uu leeyahay ra'iisul wasaare Netanyahu ayaa khamiista maanta sheegay in nidaamkiisa uu sii wadi doono la wareegida gacan ku haynta magaalada Gaza haddii xitaa ururka wax iska caabinta Falastiiniga ee Hamas uu ogolaaday heshiis xabad joojin ah dariiqa ugu dambeeya isla markaana uu hubka madaxa saarto oo uu deegta ka dejiyo. isagoo la hadlayay Sky News Australia Netanyahu waxa uu carabka ku adkeeyay in Israa'iil ay u baahan tahay inay gacanta ku hayso Gaza si ay u baabiiso kooxaha uu ku tilmaamay argagixiso oo ah gobonnimo doonka sida loo xaqiijiyay ammaanka Israa'iil sida hadalka uu u dhigay. Netanyahu hadlaya waxa uu yiri dagaalku waxa uu dhamaan karaa maanta haddii Hamas ay hubka dhigto isla markaana ay deyso dhammaan la haystayaasha laakiin haddii weerarka magaalada aan dib u bilowno isla markaana qorshaha jitaynta weerarka uu howlgalo suuragal maaha in ay hubka dhigaan.
sidoo kale waxa uu hadalkiisa ku yidhi hadafkeenna waa in la sii daayo dhammaan lahaystayaasha iyo in hubka laga dhigo kooxaha wax iska caabinta waa lama huraan in la burburiyo saldhigyada ugu dambeeya ee kooxda si loo helo nabad waarta ayuu yidhi. Netanyahu oo sii hadlaya waxa uu sidoo kale ku adkaystay ujeeddada ma aha qabsashada Gaza balse waa in Gaza Israa'iil ay siiso mustaqbal ka duwan kan maanta ay ku jirto. waxaan aaminsanahay in haddii aan nahay meel u dhow taas aan ku gaarno waa in kooxaha la burburiyo. waxa uu sidoo kale soo hadal qaaday aragtida madaxweyne Trump iyo isaga iska taageerayaan. waxa uu sidoo kale sheegay madaxweyne Trump inuu taageero buuxda u hayo hadafka Israa'iil ee xoreynta magaaladaasi iyo tirtirinta kooxaha hadda sida weyn loola dagaalamayo. waraysigiisa waxa uu ku yidhi Trump waxa uu si cad u sheegay in Xamaas ay ka baxdo magaalada ma jirto wax shaki ah oo aan Xamaas kaga tagi karno in magaaladaasi ay qayb wax ka sii maamulaan. inta uu hadalka jeedinaya Netanyahu waxa uu sheegay in dagaalku uu ku dhow yahay dhamaad isagoo ku celceliyay Gaza waa la xoreynayaa xukunka adag ee kooxda argagixisada ay ku hayaan meesha ayaa laga saarayaa mustaqbal fiican ayaa loo abuurayaa maxaabiistana waa la sii dayn doonaa. dhinaca kale dadka ku nool magaalada Gaza ayaa Khamiistii sheegay in ciidamada Israa'iil ay sii wadeen duqeymaha culus oo ay ku garaacayaan magaalada iyadoo la sugayo kulanka u dhaxeeya Netanyahu iyo wasiirada dawladda si ay uga wada hadlaan qorshaha lagu qabsanayo magaaladaasi go'doonsan sida ay xaqiijiyaan. in ka badan 60,000 oo qof ayaa wararku sheegayaan in magaaladaasi ay ku dhinteen saacadihii la soo dhaafay dagaalada Israa'iil ay ka waday qaybo ka mid ah intii dagaaladu ay ka socdeen guud ahaanba magaaladaasi. isla wararka ka imanaya marinka Gaza iyo magaalada go'doonka ku jirta ee gaajada iyo rasaasta dadkeedu ay dilayaan ayaa ku jiraaye ciidamada Israa'iil ayaa digniin siiyay hay'adaha caafimaadka ee waqooyiga Gaza si ay ugu diyaar garoobaan barakicinta shacabka magaaladaasi. warbaahinta carabta ayaa ku waramaysa in ciidamada Israa'iil Khamiistii ay ku dhawaaqeen inay la sameeyeen xiriiro digniin oo ay la yeesheen mas'uuliyiinta caafimaadka iyo hay'adaha caalamiga ah ee ku sugan waqooyiga marinka Gaza si ay uga digaan qorshaha soo socda barakicinta dadka magaalada isla markaana ay uga baxaan isla markaana ay aadaan koonfurta magaaladaasi. war-saxaafadeed rasmi ah oo ka soo baxay militariga Israa'iil waxaa lagu yidhi sida loo damaanad qaado badbaadada shacabka ciidamada Israa'iil waxa ay bilaabayaan wargelinta hay'adaha caafimaadka iyo ururada gargaarka ee ka howlgala waqooyiga Gaza waxaana la qorsheynayaa in dadka lagu wareejiyo koonfurta isla markaana halkaasi ay isaga baxaan. waxa uu sidoo kale sheegay cisbitaalka koonfurta lagu sameynaya dhismooyin area si ay u qaataan bukaanno cusub iyo qalabka caafimaadka ee lagu kordhinayo. mid ka mid ah saraakiisha isgaarsiinta ciidanka Israa'iil ayaa sheegay in ujeedadaasi ay tahay howlgalka ballaaran ee la doonayo guud ahaanba magaalada Gaza in lagu sameeyo. Israa'iil waxay hadda bilaabaysaa weerarkii ugu xoogganaa iyadoo meelo ay ka mid tahay xaafadda Saytuun ay ka soconayaan dagaalo aad u xooggan. akhyaarta nala socota ay tabinta qaybtan intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa. si aad macluumaad iyo warar dheeraad ah u heshaan ku soo biira YouTube-ka oo subscribe saara. nabadgelyo.